عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقييمي قدرين تنقى مدن آدين السلامينا وأصحابتينا تيم منصل ميديا فضلا اسكو داي إنا صارتو سبسكراب قنبليل كان أفرطو نسيدادو النقطة دعوضها أقوه الرئية لنا صعودو برنامج دينا runtii waxaa jirta maalmahan fahmaysaa in youtuberada ay aad iskugu kacsan yihiin waxaan idin haynaa sirar culus maxaa ka dambeeyay dagaalkii mantaanaha iyo dudur sidaysa Ismaaciil iyo Xasan iskugu dhaca iyo arrimo kale oo la mid ah iyo arrin kale oo ah in balbalaarku ay ka tagtay durdur media ayadoo dib ugu biirtay sheekayar official runtii haddii aan midda sheekayar idin faahfaahiyo horta waxaa jirtay in Xasan oo hadda ka hor balbalaarka markii ay soo qaaday heestaas oo iyada ay ku cadeysay surwaalka inuu Xasan Toob u galiya waxaa jirtay in balbalaarku ay tiri iguma sii arki doontaan durdur media umana naqan doono mana tegi doono maadaama ay noqotay ma fahmaysaa dad inta badan dhibaato ii geysta ay noqdeen shacbiga Soomaaliyeed in badan ay raali ka noqdeen inay ka go'do gabadhaasi durdur media ay ka go'do runtii waxaan rabnaa arrinkaas inaan wax yar aan idin kaga tusno fadlan adigoo raaliya balbalaarka iyo arrimaha ku hadlayso wax yar nala dhegeyso Xasan Toob waxaan ugu digaa gabdhaha Soomaaliyeed durdur media gabdhaha sharaftooda ku tunteen ani horta maanta way igu dhacday ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ku codsanayaa raaligelin buuxdan caawa ka bixinay midan horta ani way igu dhacday amiin dambiina la naga cafiyo amiin horta midan ani way igu dhacday caawa waxaan ka dhax karana waa ka dhahay horta inuu qalad ku dhaco meesha way ka hadlaysaa gabadhan inuu qalad ku dhacay in arrinkaasi lagu sameeyay inay ka xun tahay intaba way ka sheegtay waxyaabo kale oo ay ku dartaa jirta meel laga isticmaalin caaw hadalheentayga la hadalhaalin horta malaha waxa igu taliyay dharkas inaan gashto Xasan Toob ay ugu anaan ka tagta caaw ka bilaabata macnaha hees ahaan lahayd alashaan labiskayga teemkayga kulli waa soo saxlahay ilaa waxaas waa u jeeday inuu Xasan Toob uu falaqeeyay uu ka dambeeyo aniga gardana meesha ay u aragtiin caatim ma aha sharafteeda meel xun doora waa gacanaan ka tagta caaw ka waxay sheegtay inay gacan ka taagtay durdur iyo team durdur media inay gacan ka taagtay ayna ku noqon doonin sidaas ay noo cadeysay intaas kadib waxaa jirtay inay durdur ay dib ugu laabatay fartuun balbalaarka iyada oo Xasan Toob oo la xiriiriyay amase oo arrinkooda ka dambeeyay Ismaaciil Cali Cabdullaahi yar la dhaho oo waa bari degan oo arrinkaas ku xaliyay inuu labadan heshiisiyo iyagoo sidii heshiis ku noqdeen dabcanna haddana isku soo laabteen fiidiyoyo badanna isla suubiyeen inta badan shacabkuna wuxuu aad u malayn jiray inay go'aan cad ay ka qaadatay fartuun raggaas inay go'aan cad ka qaadatay ayay maxaan ku iraaday inta badan ay aad ay u malayn jireen waqti dambana waxay noqotay inay furato fartuun youtuber ay noqoto youtube-ka ay furatayna fikradeeda sida saxda ah Xasan Toob ayaa ugu dambeeyay asagoo arrinkaasi wax ka raadinayo in fartuun haddana dib uu soo celiyo because wuxuu aad u raadinayaa inuu fartuun dib u soo celiyo sidoo u noqday youtube-kii mar labaad ka sii qarxa Muqdisho waa fikradiisu waxay tahay haddaba macnaha la soco fartuun youtube-kaasi ma loogu samaynin shakhsi ahaan ma loogu samaynin inay iyada gaar u yahay ay ku shaqaysanayso
ay rabto inay hanti iyo maal ay ka samayso maal inay ka samayso mid loogu talagala ma iyadoo sida jirto ayuu haddana go'aanku wuxuu noqon doonaa waxaan filayaa inaad videogan maalin maalmaha ka mid ah aad dib u sii dhagaysan doontaan nuxurkiisana oo idin sii qaadi doono oo waxay ra'yiga saliimkaana meesha ka jira aad dareemi doontaan gabadhaasi youtube-ka waxaa u furay xasan toob ayaga oo fikradaasi iskula dhaliyey ra'yi ahaan saddexdooda xasan toob iyo nadaamiya iyo balbalaarka iyagoo ku fikiray inay u suubiyaan youtube balbalaarka ay kadibna ay ka dhigaan inay ka goosatay waa fahamteen oo malina dibna beri ee ugu soo noqoto haddana isla durdurkii because waxa waaye dadkan hadda way ku xirneed way nala shaqaynaysay saaxiib qaasana way la ahayd ma fahamteen marka intaas kadib koley waxaa jirtaahi in fartuun ay dib ugu soo noqon doonto xasan toob because shalay waxay tiri gacanaan ka taagay haddaa igu aragtiin ee caaya maahe waxaa hortiin waa ay dhihi kartiin waa idiin banaanta okay